Salebaan Xagla Toosiye wasiirkii hore ee caafimaadka maamulka Somaliland ayaa wareysi xasaasi ah u siiyay TV-ga SSTV kaga hadlay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee xasuuqa u geysanayo Muuse Biixi shacabka magaalada. Wasiir hore Xagla Toosiye ayaa yiri Muuse Biixi xabad ayaa looga saarayaa Gooja Cadde oo halka ugu dambeysay ee gobolka Sool xilligan kaga gabanayo isaga oo dabada kula jira madaxa oo dulaysan. waa qasab waadna arki doontaan. Xagla Toosiye ayaa sidoo kale ka hadlay gurmadka Hiil Harti ee walaal ee lagu garab istaagayo shacabka SSC kaasi oo ay sameynayaan dadka la dhashay. Waxaa noo soo gurmaday talkayo aanu ka dhalanay ee Harti. hadda weli daaradu weyne uma aanan yeeran oo baahi heerkaas ma jirto ayuu yiri wasiir Xagla Toosiye oo ka hadlayay xaaladda magaalada Laascaanood. Xagla Toosiye ayaa kamid ah mas'uuliyiin ka soo jeeday gobolka SSC oo dhawaan sheegay in ay ka bixeen siyaasadda Somaliland iyo qadiyadda gooni-goosadka ay la dareen yihiin shacabka magaalada Laascaanood oo ku soo duulay maamulka Muuse. waad ka tagaysaa Gooja Cadde way ku roon tahay inaad baxday imka intaanay nama badan oo labada dhinac ahi dhiman intaan nafa badan khasaare badan dhicin haddaad sabax weedo waa khasab adigoo liita oo dabada labada lugood dhexdooda kula jira baxaysa taa waxaan ugu noqday musaashii hore su'aashada weydiisay waxa weeye kale Laascaanood ay ka dagaalamaya Laascaanood waxa isku difaacaya oo maatidooda iyo dadkooda iyo hantidooda iyo dhulkooda difaacaya dadka deegaanka وقبيلكي دقنا إلهي كبيرين عد كله أو شوك تامجرت وارون رقم بينو لنا مركز دقال دعوه انتي اسكو قبيلة هيبو يسو قرمتها قرمت بدن أو كيمد بيلها الله الشيء نولبانته واشوغان وابوحان وانا دقال لما يعني وانا سيدا دقن كسو مالدو يعني هرتي ويمد إلهينا ما قارسين ولي إننا وباهنو قرمت كله كل الكشنات يدول الدجان كالصومالي وحيسكود ذي وكشقيين إثيوبيا ورني إلا تشوشيو هاوش وحيدنا وكيم حتى قبيلة الدجاه أي حجان ربحانته قف كم صو عيدا من عيدا كله أوتشوجا مجسرو فدرال كله جماعي من بنتلان لقى ما يمن حدير لقى يمدنا وعيد ما دي ربعانته وتحصلنا خران وشاقنا عيدا كقرن كالصوماليات كتير سنة ربعانته أيضا عيد صادرين أو عيد سواء بابلين بيمادين وإنه البهو يدي يا ولالكي يا أديركي يا بهالكن الجراء يا مدفع ضميرك ي ضمني ماذا خاص بيسا إنه شغله هي تشوفيه تذكي سوي مات كوي بنتلاند كتر سنة سيدو كله لكن ماشي واحد كده قال لهم يا ربحانته يهرتجي أسوق رمضي وعده أرجع حسوا حلا هذا مشوت دولة ديان كأو دجال كقرش قال لنا مشرو منا إيمان دولة دهان نكمل يجرين شعب هان نكمل يجرين مركا أرنتاس وحوي فلها وحكايات بدني مشرو فلو هذه الشهر مركا هورنا لما قبان كرو دجالك دونيو مركا الله جرعنا وحنا والله وندير الهاي قفقة سايق بتيو ضدك كلا غبري يحتاج كدرة ولا لقب يقبتي قعم بيقبتي ما يشر ضدك لها بقى دجال ميا حق بينه كده دجال ميان وحوي ما حيقول ما قلت هذا المركا اللي هذا الدجال كي بنتو لاني قبل كلي إذا مصادري وماشي كده يلا بيجي يقول لي اللي أرجع حساب ماشي دكتور شباب داعش يا ماشي وإد فلينيمو وأنا أقول شيء فلها مركورنا وحكا قيلة يسنقر بدر مركو قف ويرريو مركا لجرعنا بقول إيدود بوشجع مركا أنا وحنا مركا أورنا يا وإد فلينيمو موسو عد عندك كي ديجان كأحين أو كل دجال ما يصح ما تشوفته هرتبا كل دجال ما يه وحسكي لي هذا قاعد البداية وي تليها عيدك السومال لأنه تاني دوان وحويلي مجال وأوترني وأنا أوترينا شعب كيجوي Laascaanood marka la joogana madaafiyada ku soo dhacday sawirada laga soo qaaday aniga laftooda arkay wax shibinaadamku ay fiirin karta ma
مثل هاي سومالي لان ciidamadooda waxa ay ula hadheen laascaanood iyo dadkiisa ma taas waxaan warkaa anigu hadal taagwa ninka noox la yiraahdo wuxuu ku hadlay caruur calama wadato dhashii kala dhacay nooxtaani caruur calama lulaya oo teenagers 18 ayuu madaxa dhashii kala dhacay moomalan in xabad ku soo ridayeen uu turanayo no ma turin mar hore iyo mar dambe midna wixii uu awood lahaa isaga iyo ciidanku taliyaha kay waxba uma harsanaa ninka ilmaha yar 14 jirka dhashii ka madax kaga dhuftay ilmo yar oo qori haysan oo xabad ridayn oo dhagax tuureynay calan lulaya ninka xabad dhashii ka madaxa dhashii kaga dhuftay miyaa u turaya ciidan magaalada difaaciya waa maya marka turaale ma jiro ee tamar baa halka dhigtay way gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland mudan Cabdirasaaq Khaliif Axmed isna waxa uu waa siyaasiyiin ka soo jeeda deegaankan warkiisa waa cadeeyay walina wuxuu ku sugan yahay deegaamadii SSC adigoo xabla toosiya laba jeer ursiis soo noqday siyaasi macna weyn ku dhaxlaha geeskana adigana warkaa waa horeyna oo cadaysadana waa cadeeyay وحيرة أو مدح السومالي إلا صوص ما يصير وهوش إلا الدجية مجرد ما وحا حرير سمية وحل راضية وعد الله وعد دونا قف عقل جيسو شغيني يدوني إنه حل راضية ماشن حوش السعطاء ماها حول حلو دوني نلما يسو حريرين أنا كل يبالله لما يسو حريرين maalmihii hore ee hawsha socotay waanu isku taxallushay inaan xiriir sameeyo talooyinkan gudbiyeen lama dhageysan imikana xiriir ya Muuse iskaartay markaas Muuse waan la hadlay marka hawsha bilowgahay waxaan ku yiri maantay daba qabashada maanta la joojin karaa gees noqon la baxciidankaaga khasaaraha jooji dhiigan dadkan ehelka is jooji ciidanka qaad dadku nabad ha helaan fursad si nabadda wada hadalka fursad si muuqaadan marar uu sameynayay jilid nin nabad doonaya inuu yahay ayaa jirtay for example markii uu soo diray isimada reer Sheekh Saxaaq iyo Samaroon uu yiri ismadaas waxaan diyaar u ahay inay nabad dhaliyaan markay yimaadeen Caynabo iyagoo xiriirkii ismada SSC doonaya ayuu Afrika ka weeraray subaxii la sacnood markay caawo kala Caynabo yimaadeen buu subaxii Afrika ka weeraray oo ismadiisa haduu soo diray marka oo dad aad u tiro badan ku dhinteen marka nin waxaan joojinaya maaha waxaan ilaahay ka baryayaa inuu inaga fududeeyo insha Allah dhawaan waxaa saxaafada la hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Sayle xakaga baxay waraysigiisa Sayle si waxaan u aqaanaa waxay iga baxay in uu yahay nin loo soo dhiibay hadal baaqiya oo Muuse oran karo waayay ama ka baqay Sayle wuxuu saddex qodob ka hadlay mid waxa weeye Cabdirasaaq Khaliif oo weeday midna waxa weeye lascaanood yiri xoog ayaan ku qabanaynaa midna waxa weeye 94kii iyo garxajis iyo wixii Muuse iyo groupkii markaa joogay ay ku sameeyeen saddexda mas'alo midna Muuse kama hadli karo qodbadiisa maalintii uu ku dari kareen waa mid arrimaha garxajis ee 94kii sameeyay lagu eedeynayo ma soo qaadi karo Muuse bixi midda labaad xoog baan laascaanood ku qabanayna ma oran karo maxkamadii waxba ku socda oo waxa la yiraahdo waxa imka yiraahdo waa loo adeegsanayaa
cabdisaaq khaliifna waa nin la awoodo oo la doortay oo ninkii saddexaad dalka ah oo kama hadli karo marka wax ay oran kari waayeen Muuse iyo xartiisu way ka baqayaan ayaa loo soo dhiibay waana ka xumayno iska garan waayay waxba lagama weydiin dagaalka socda xilligu bilaabay markuu bilaabanayay ilaa iyo hadda lama talageliyo deegaankiisa uu madaxweynaha u yahay wax lagama weydiiyo lagalama tashado awdal waxba lagama weydiiyo kamana taliyo waa miskiin meesha iska jooga waana ka xumahay isagoo aakhiru cimrigii Somaliland maraya oo waxa u harsanba ay bila yihiin in Muuse isticmaalo marka garxaajis 94kii wixii dhacay iyo wax maanta socdaana isku mid maaha shaqana isku ma leh Hargeysa la isku dilay iyo Burco reer Sheekh Saaq baa isdilay dhaxdooda maanta way ka durugsan tahay nin baa dadkii ku tumanaya kibraya wuxuu doono sameynaya carruur yar dhashii ka madaxa kala dhacay qadiyad uu dagaalamayo iyo wuxuu sameynaya aan la garanayn dal dhan oo isaga gacanta ugu jiray sidii awr buubaala ku tuntay marka iska celinta ka socota Laascaanood la mid maaha tii taan 94 waxa ahayd arrin reer Sheekh Saaq dhaxdooda u taalay iyagana og sababta iyo waxa keenay laakiin tani waa qadiyadii marka durugsan Cabdiraxmaan Saylici war aamus baan leeyahay intii hore mad hadlaynay waxna lagu weydiinay inta yar ku harsan hadayba si jirto meeshu waxa gaar iska qaado iska nafis laakiin inuu yiraahdo macnaha Laascaanood xoog baa ku qabanayna iyadoo aan ognahay xoog iyo korba ku hayay in shacabkii iyo awoodii bulshadu markay kacday in ciidamada Somaliland xoog looga saaray maxay soo kordhinaysaa waxba mana ogeyn xoog aan lagu hayn karin marka Laascaanood waxaad moodaa in inta isagoo hurdal loo tagay la toosiyo la yiri saade xoogna daaimka hadii lagu qaban karo lagu hayn lahaa xoogna xal maaha dagaal xal maaha gardarrada cidda wada waa loo yahay Cabdisaaq Khaliif waa gudoomiyihii baarlamaanka Somaliland waa ninkii saddexaad ee Somaliland tan imika la difaacay Muuse leeyahay way dumaysaa waa ninkii Somaliland u tagay Laascaanood si uu u baaro xogta wixii uu soo saarayna waa la diinayna waxa weeye maxaad been u sheegi weeday ama maxaad runta uga hadashay wuxuu sheegay in meesha dhib ka dhacay xasuuq ka dhacay xukuumaddu geysatay Muusena uu dhageysan waayay talooyinkii uu soo jeediyay isagoo gudoomiyaha baarlamaanka Cabdiraxmaan Saylici inta waxaan maleynayaa isaga haddii awdal la garaacayo tani awdal ka taagan tahay siduu yeeli lahaa uu inoo sheegay laakiin Cabdisaaq waa ku bogaadinaya oo ugu hambalyeynaya go'aanka adag uu qaatay iyo siduu dadkiisa isu dhinac taagay aad iyo aad ma santahay mudan xagla toosiye gabagabada ayaan ku dhownahay waxaan jeclahay inaan wax ka weydiiyo hadda waxa ka dhawaajisay Muuse maxkamad baa ku socota yaa ku wada maxkamad iyo dhibaatadii meesha ka dhacday Muuse iyo cid kastoo kale ka mas'uulaba dadka SSC way wadaan ummadda Soomaaliyeed ee wanaagga jecelna way wadaan caalamkuna waxa meesha ka dhacay wuu arkaa oo la wadaa wixii meesha ka dhacayna ifkana Muuse ka mas'uul oo lagu xisaabtamay aakhirana Ilaahay isagoo kala xisaabtamay idinka reer SSC ahaan ma idin qorshaysada kula xisaabtamay ka hadlayno wax meesha ka dhacay samaysay marna ka hadlayno sina uga hadlayno way madaxweyne Muuse Biixi waxa uu korneel ka tirsan ciidamada Soomaaliya dawladii kacanka wixii uu 90 iyo ama 88 diidan lahaday inuu 2023 sameeyo sidee u muuqan kartaa marka dhinaca caalamka leeyahay waxa uu muuqan kartaa horta marka hore shakhsi ahaan Muuse wixii uu ka baxay ka dagaalamay inaan qadiyad ahayn
ay uun iska ahayd waxaan la garanayn way hadduu qadiyad u dagaalamay oo ka dagaalamay dulmi muu sameeyeen waxaan markaa samaynayo talabaad waxa weeye waxay kaloo ku tusaysaa haddiiba uu dulmi ka dagaalamay oo aynu kaba dhigno inuu dulmi iyo kacdoonkii shacabkiisa caawinayay samaynta iminka tan samaynaya waa bareedh iyo argoosi uu shacabkan oo loo tirinayo inay ka tirsanaayeen dadkii dowladda lagu xamanayay inuu nabaradii hargeysa ku dhacay aanu iloobinay uu argoosi iyo bareedh u samaynaya waxan waa labada midun inay argoosi tahay iyo inuu eedheerkii aanu qadiyad u dagaalamayay inay qabiil u dagaalamayay iminkana tan u arko in ay tahay arrin qabiil oo qabiil ahaan iminkana ku dagaalamayo markaana qabiil ahaan ku dagaalamayo iminkana qabiil ahaan ku dagaalamayo saas umaan u arkay anugu way madaxda dowladda federaalka Soomaaliya qadiyada sida ay uga hadleen sida aragtida siyaasi ah run ahaantii xasan sheekh maxamuud anagu sida uu arrinta u address gareeyay ama uga hadlay ma jeclaysan madaxweynihii Soomaaliya dadkana waxay yiraahdeen Soomaaliya ka tirsanahay dadkana waxay yiraahdeen xasan baa madaxweyne noo ah ilaa haddana xasan anigu ma arag position uu qaatay ilaa hadda position cad oo xasan sheekh qaatay oo arrinkan ka qaatay ma arag wuxuu ku meereysanayaa hal wada hadlo labada dhinac ha wada hadlaan war laba dhinac oo istilaya oo wada hadlaya ma jireen dhinac baa doonaya inuu dad Soomaaliyeed oo adigu madaxweyne u tahay ku khasbaan qadiyadaani doonin waxaad u dhaaratay ummadda Soomaaliyeed madaxweyne Soomaaliyeed baa tahay qaado position kaaga aad ku leedahay hawshan